السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي وإذن سلامين كستو جوجتا halka naga daawanaysan waa اسطنبول official fadlan hada ku cusubtay subscribe nala sii joog like kuma santii asxaabtay maanta qaarna wax aan wili la sameynin inaan sameeyno oo maxaa la dhahaa aan ku sameynayno laba option baa qaadanayna inaad telefoonada hormuud awacno in maxaa la dhahaa facebooka maxaa la wili xataa xoog waxa saari doonaa facebooka saari doonaa dadka wili friendskan laakiin aanan wili hadlina xaraba inaan dhaho walaal miyaa assalaamu calaykum wacalaykum assalaam walaal magacaaga ii sheeg intee joogtaa kadib waxaa le walaal waa ururka oo maxaa la haweenka magaca waxaa loo bixinaa maama qadro ururkeeda waaye camal aan haynaa ama maama faadumo kulleed maama faadumo maama qaado qaadana labadkee qaadana faadumo qaadana maama faadumo ururkeeda waa leenahay waxaa jirto barnaamij aawadnay muddo 3 bilood ah konton qofood guur wadareeda sameynayna aan leenahay konton wiil iyo konton gabdhood la isku dari rabaa alaabtoodii iyo waxaa laga rabaa dadka walaalaha muslimiinta wax sadaqeysana inay yani ku tabrucaan marka la socda asxaabteeda kuwa qaar waxaa lii doonaa walaal masaajida la dhisi rabaa waxaan u baahanaa waxa kugu soo qoran lacagta halka kadib waa ka haduu dhaw ogolay si loo baahnaa kadib gadaal loo sheegay inuu barnaamij ahay lagu sameeyay laakiin dadka ku sameeyeen ana xataa ma aqaan ayagan ima aqaan laakiin just friends oo kaliya hana wadaan qoon doonto arka doontiin safiin waxay noo qaabilsantay magaca iyo waxaas waan arka doontiin cabsiga ana magaca xaqiiqaayo على magac soo yeer walaal wadanka joogto daa asxaabta dawaka u maleynaysa ujeedino qof la iskaga fala cidu ya xataa ma ogi automatic qof ku dhaxada yaa wato hore la qabanayo wuxuu noqdo wakana oo gacanta ku dhaxaysa idin sheegnay waxaa la dhahaa maxamed iftiin aan lahaa laakiin idana meesha joogo waxaa u qoran Nairobi inuu arday ka yahay London inuu joogo laakiin ma aqaano way iska weydin doonaa kulay wixii la kulmayno arka doontiin si asxaabta muuda galacsi tolo mal qaban doonaa hallo assalaamu calaykum السلام محمد ميا ولا ها محمد ايه وربل يعني الحمد لله ولا لو ururka maam faadumo waaye waxa jirto barnaamij ay muddo 3 bilood ah soo wadnay oo guurdoone marka waxa rabnay konton gabdhood iyo konton wiil isku dareena marka waxa rabnay dadka walaalaha friends kala nahana inaan weydiisano inay nacaawiyaan marka walaalo waxaan rabnaa hadda maxamed adu waxa lagu soo qoray $100 lagu soo qoray konton qofood oo friends kala xulay oo Facebook ah ku lahayn هلو قد قدم يا ملينا والله قد قدم سيفي عيدين كسو قاري واي كرالا marka waa ka asxaabtaydi wuxuu yiri waxir isagoo ku soo waca maxaa sameynaa hay u sheegnaa mise waxa waaye branket sameeyna madana ma madana laakiin gadaal ka wacdo okay next one qof la soo qabanayo waa kaay asxaabta hadda ma arko yani adika ila jeedin saas u deedan laakiin waa wicdo doona asagana milka waxa uu qoran maxamed uu qoran abuwaha laakiin ma aqaani asagana maanta maxamed koowaad maxamed meeno wallahi cabsi darteeda asxaabteeda dhida ay yimaada ku dhig baranki la sameeyaa muuda ku jirna hadda wuu qabtay hallo assalaamu calaykum عليكم السلام maxamed xaaji faarax miya ها seen marka maanta waxaa jira program inaan kula socodsiiyo aan rabay صح marka waxaa jirtay masaajid oo kaabagoday ku yaalo oo waxaa jirta boos oo islaan maamo Saciida laay ee sadaqeysatay marka waxaa kamid ah dadka Facebook friendska ah ku nahanay oo konton qofood la soo xulay in lacag lagu qoro marka waxa ka rabnaa marka maxamed waa hayna magacaaga oo saddexan iyo lambarkaaga iyo meesha joogto iyo lacagta aad sadaqeysanayso ya فريق ماشي وقولي والله ما okay waa maasante way print meesha ku
de soo wacana ii darnaanayso laakiin waa wici doona waxaa dhihi doona walaal barankee lagu sameynaya laakiin wiilka uu ka gaabsaday aada u gaabsaday dib ma lahaan labada qofood kaleeta ayagana waa lasoo gelinaya waa loo sheegaa in YouTube la dhigaa oo barankii lagu sameynayay qofka kaleeta aan soo qabanayno qofaan naqaana ilaahay ma ka dhigo qofaan waxaa fiican wiiliga aadan sheekaysanin qofka ugu horeeya waxaa ka dhigaa cali camuuda ugu qora cali camuud ma aqaani cabsiya ihaysaa ku dhas xaqiiqay naag nin waaye nin cali camuud asxaabteeda qofkan wuu qaban waaye waa ka jari doonaa laba qof ha soo qabana qofka saddexaad uu qabo waa cali camuuda uu qoran wuu ka badbaadi maanta barankia ugu talagalnay barnaamijkan waxaan ka dhigi doonaa haddii soo dalbataan codsi waa sii wadi doonaa intaas waxaan sii raaci doonaa haddana waxaan soo qabanaynaa haddana asxaabteeda tookadan qofkana lasoo qabtay waa arki doonaa isagana u dhacuya dumar waa dumar whatsapp waa kida cuna muda ku jirta asxaabteeda dumar waaya halo salaamu calaykum وعليكم السلام walaal ii waran يا عن قير walaal magacaa نجمة najmo halkee joogtaa ya يا أخشي والله يا وادي yaqshidaad joogtaa miya eesh aawadane barnaamijka waxaa la maamo faadumaa la dhahaa waxaa jirta dad oo maxaa la dhahaa oo gurwadareed aan sameynaynan hana urur isbiirsaday oo walaalo soomaaliyeed aan rabno dadkii walaalaheen aanan awoodin inaan u sameyno gurwadareed marka dadkii maadaama aynan awoodin dadka walaalaha soo dhexgalnay waxaa ka mid noqon dadkii social media friends ku ahaynay oo konton qofood oo lasoo xulaya ka mid noqotay gabadhii ugu horeyso qadka soo gashaa noqotay maadaama ay ka horeeyeen wiilal badan marka walaashaya marka waxaa kaa rabnaa marka lacag aa kugu soo qornay yaqshidaad joogtaa maano ولا أنت يوسف قريت محاسة بنجي واحد شوقا أدوك maya bangiga adduunka maahan waxaa jirta dad oo qoratuur loo sameeya dadkaasaa ka mid noqotay oo nasiib ku helay oo walaalahooda kontonka qofood oo guurka samaysan waaye naxariis allaha kaasi awlaada baari allaha kaaga dhigo intii maadaama guri wax ka qiimo badan aysan jirin in la dhiso فيري دتك إسكو سنة يعني وضدي هذا اسكو درتا مينك أو بيلاي maya ayagaa biirana laakiin just waxay dhaheen dadka cabasho ay keeneen maadaama guurka ay dhaheen gabdhaha qaaliya ka dhigeen wiilashii ay dhaheen annaga ma awoodna gabdha qaarna aa lasoo aruuriyay oo gobolada qaaraa ka keenay iyo kuwa xamar jooga iskugu jiraan asagaa u shaqaysanaya laakiin waxayna dhaheen lacagta guriga iyo qarashka bis oo keliya naga dibira annagana maadaama aanan awoodin intaba laakiin aan soo dhexgalno walaalaheena soomaaliyeed bankiga dowladda waa u shaqeeyaa kulaa halo كرين أو جورو سمعت كرين سو قفوا كلو كهمنا أو بريا دوي أو فرو مس محل أو قبل مساكين تدي بوجو يستان سو قلت يدين كمال يدين maya qaladka annaga ma dhigin labada dhinac wax isoo shukaansado muddo wax wadu waa laakiin waxay awoodi waayeen qarashka guriga lagu dhigi lahaa iyo maadaama annagana dadka isku keenno oo ururka u rooro oo maxaa la lahaa isdhexgalka bulshada maadaama aan hanay dadkii beri waxaan ahan dadkii mustaqbalkooda ka fikiri lahaa ya kuwa aan ka seen isku madari kariye hada awood lahaa oo maxaa dhahday wax ku bixiya ku firisaha ku dari lahaa kuwa dirisna la firiskana isku dari lahaa halka kuwa aan ka seen isku daray may walaalo hadda waxaan wax sadaqa waaye waalidkaaga oo dhintay dadkaas u baxsanaysa u niyees oo keliya waxaa awoodid $1 $10 $50 $1,000 $3,000 $1,500 waxaa awoodid keliya igu qordhe lambarkaagana noo reeb annagaa kusoo wici doona marka والله صدقة دوبانا مساجد وكترسنا كودي دس أروسا أجر لك مهلا أوكي هي بربرك إسبران
soo gaaraye bal wax kale ii sheego sax بالله كديري لا وقف وديرس كنا اسكو داري لهاي ما دام دا اسكو داري سبحانك يا امد ولا مستقل خلاص لا مقعا باي ya مقعا magaca xawa bixi marka ما wax un bay jir waxba kula wadaagi rabnaa magacaaga ii sheeg adoo raali iyo halkaad joogto yani raaxa leedahay intee joogtaa baay farax ani waxaa jooga galmudug galmudugaa joogtaa waa soo dhawaay faraxay waxaa jirto waxaa waaye gabdho walaalo oo urur iskugu tagay oo maamo Faadumo la dhahayo ururka marka waxay u ololeeyeen dadka aanan awoodin guurka marka waxaa jirtay guur aan sameynayno aroos wadareed la dhahayo oo 50 qofood oo laakiin awoodi waa inay aroos dhigtaan waxaan rabnaa hal marna aroos u sameyno marka waxaa ka mid noqotay dadka social media friends ah kuna laakiin aanan is aqoonin oo ka mid noqotay in maxaa dadka la soo qabto oo loo sheego dadka lacag lagu qoray hello abay farax ma shaqaysaadi hello markii farax waxaa ka mid noqotay ma shaqaysaa guri jooga teemiya waxaa ka mid noqotay gabdhihii oo 10 door lagu qoray maadaama laakiin maxaa la qof walba hadduu shaqeeyo title-kii shaqada lacag u qalantaa la siinaa marka adiga waxaa ka mid noqotay maadaama hadda guriga aad joogtid waxaa kugu qornay $10 kugu qornay $10 kugu qornay farax $10 u qor kirna waxaan rabnaa maadaama aysan awoodin ay dhaheen annagana ururkii bulshada u oleynaysa aan ka mid nahay والله umada Soomaali joogta wax ka gaajaysan ma jiro maxaa nagu dimisa baayo gabdha walaalaha oo ku soo wacano waxaan runta ku sheegay xirfad cusub oo luut abaa xirfad cusub oo lagu tuugsanay ma ahan laakiin waxaa jirtay wax dadka u sheegeen hadda dib ma lahan hadda wax ma sadaqaysanay haddii $1 awoodid waa ka qaadayna haddii $10 ka badan awoodid labada dhinacba wax ma hayna ceeb maaha wax la'aantana la isku manaco ani wax uu lacag ma isii wax isiinayso qala wada ifraahay adoo raali abaayo hamray dhigeyso waxaa jirta wax barankii la dhahayo marka waxaa ka mid noqotay gabadhii labaad oo barankii aan ku sameyno ina sheekada brank ee anta waxaa ugu weydiinan ko ka fashil brank waa keentay miya waa caadi asxaabteeda waa ka haddana qofka kale la soo qabanaya saasa gacanta ula raaci doonaa aan hadda ma ujeedino qofkana dhag la siinaa cideetay waxaa waa 5 Soomaali weyn ugu qoran qofkan wili ma hadlin ujeedada misla hadlin friends laakiin waan hanay okay qofkana la wacaa 5 Soomaali weyn ugu qoran aad xaaleeyay masaajida isuuyaa halo salaamu calaykum walaal ii waran الحمد لله ولا الأورك هوينك ما مفاضموه أور هوين واي أو أدو حقوق هوينك إيدك بلشة دتك دنت يرقي واي مركب وحاجرتي برنامج أو حاجرتي لو برد أسودني أو دتك فرنجس كناه قار كمية لسوحولا كنتم قفاضة لسوحولا waxaa jirtay guur wadareed aan sameynayno bisha markay dhamaato kowdeeda 50 qofood oo wiil iyo 50 qofood oo gabadhaas ku keeni doonaa oo aroos u sameynayna Soomaali waa Soomaaliya adin intee joogtaa dib ma laha laakiin waxaa hadda ku soo wacanay magacaaga horta ii sheeg Facebook 5 Soomaali weyn bisa kugu qoranay magacaaga ها جامع أحمد
jaamac axmed faarax u qor kenya jooga kenya joogta mano jaamac marka waxaa lagugu soo qoray dadka si ay wadamada u kala joogaan waayo dadka soomaaliya jooga $50 waa dadka kenya jooga $100 waayo $100 walaalahaaga ku tabruuce haddaadan shaqeynin waxaa dhihi kartaa walaal intaas ma hayo laakiin into wax adi un sadaqa un galaayo le haddaadan awoodin oo ilaahay kula ogeyn waxaa dhihi kartaa walaal ma haayo meel kale allaha idinka siiyo boodina ku jirtiin iskuul eh cudurka dartiisa nin soo fasay haa waa maasantay walaalo dhib ma lahan jaamacow wadamiye boodinaan boodinaan anoo dhe walaahi wiilka oo sheegaa waxaa leeyahay baranki kugu sameynaa jaamac shanta soomaali weyn aa u qor laakiin jaamacaan lahaa halo jaamacow walaal waxaa kugu sameynayna barankii oo ahay barankii aa kugu sameynaynay oo kole marka adikoo raali ah marka youtube-kan ma dhigan karnaa codkaaga ha yacni ma kusoo dhigan karaa ya waa maasan nuur cabduqaadir nuur ugu qorna I don't know laakiin makasay waa kaa marka ugu doonaa asagane waxaa ka baqa in la shiftaa tihiin camalno halo salaamu calaykum walaal magacaaga ii sheeg adoo raalli intee joogtaa axmed nuur cabduqaadir nuur miya intee joogtaa walaalo gabdha u ololeeyo ururka maama faadumo aa ka tirsanaani ururka maama faadumo aa ka tirsanaani gabdha is abaabulayay oo waxaan ahanay gabdho walaalahood iyo wiilo walaalahood u danqadeen marka waxaa jirto barnaamij aan soo wadnay muddadan aan kusoo jirnay oo bishaan koodeed inuu guuleysta aan rajeynayno oo aan rabno 50 wiil iyo 50 gabdhood inaan isku darno oo gurwadareed aan u sameyno marka maxamed waxaa ka mid noqotay 50 qofood oo maanta aan soo xulnay inaan wacno oo barnaamijka aan la socodsiino wuxuu awoodo walaalahood ugu deeqi karo marka saas waa soo dhawaw hey marka maxamed hadda maadaama Soomaali dadka joogo ma shaqeysa adi ardayda teemiya arday dadka shaqeeyay dadka aan shaqeeyay waa la kala qaaday dadka Yurub joogo $100 waay dadkii Kenya joogo ayagana $80 $100 hadda si lagu qaadi karo waay dadka shaqeeya oo Soomaali joogo $50 waay dadka aan shaqeynin $10 waay barka waxaa ka mid noqotay u qor axmed nuurka $10 u qor $10 10 u qor 10 ha 10 halo axmed nuur waxaa kuu qorna $10 aa kuu qornay oo walaalaha ina waxaa la rabaa ku sadaqaysato wandhash ma noqon karo shaqaysa ka والله dadka qaar asaas wax ku qaato wallahi anaga disbranki ma ana disbranki le waa asxaabteeda wax ma ku raadinooyo nagasta brankiga haddana waa soo wadaa arkale adika asagana waxaan rabaa inaan soo geliyo oo taxana aan ka dhigo marba mashruuca uu keeno branki qadkadan wiilka wuu ka baxay asxaabteeda qadkadan wuu ka baxay qofkana asxaabteeda soo qabne waa kana maxamed ugu qoran halo salaamu calaykum محمد ميا محمد halkee joogtaa walaalo محمد maxaa lagu diraa walaalo qor محمد شمس الدين سعودي jooga u qor walaalo waxa waaye gabdho oo urur sameystay oo walaalahooda ka danqaday
oo sameeyeen barnaamijka marka waxaa jirtay gabdho iyo wiilal 50 qofooda isku keenay oo hadda aan u sameynayno muddana aan soo wadnay laakiin kowda bishii rabnaa inaan barnaamijkan aan fulino marka waxaa rabaa walaalkaygiiyo Sacuudiya joogtaa dad basiya wax loogu qoray waxaa ka mid noqotay aku hambareera dadkii 50 qofood oo Facebook friends kuna la soo xushtay marka waxaa kugu qornay $150 kugu qornay oo laga rabo walaalaha inaa ugu deeqdo halo lacag kilo soo qaado maxay horan wallahi umada markii lacag lagu soo qaado ay fakanay maadaama aad joogtid Sacuudi dad shaqaysanaan Sacuudi ay joogaan $150 lagu qoray ها بيشان كويدا وحال راسكنا دغلو بيشان دبياقدي ina soo dhigta u baahanaan hadii ilaa ay bishan ay ka dhamaanay 30keeda ugu dambeey lacag la qabanayo okay xariiska lacag markay maqlaan buu rooraya dadka asxaabteeda ay qofkii ugu dambeeyay waxaan noqday qofkaas oo noqday waxa way waa ka wajeedina amalena lacag waa ugal hooyay laakiin waxa way dadka isku mid ma aha dad qalbigooda waxa way saafi way laakiin barnaamijkan taxano ahaan doona waxa ka baqaa dikidi friends kana inay kala rooraan because qofka uu cunus loo wuxuu ku sameynaysaa pranki by the way laakiin waxa dad badan oo soo qaban doona aad taqaan dad caan iyo dad kale tabo dad social media magac ku leh xataa oo friendsna ayagana tukada waa soo jifi doona fadlan youtube ka dakeeshay waa taqaanina una shuruudaha ma sheegi doona waa ku mahadsantihiin marka bye next video kale sida iyo nabadgelyo